soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay political vocabulary ku saabsan siyaasadda. Anigu inta badan dadku waxaan kula taliyaa ama ay inta badanba mataqaanaa ay tahay markaad baranayso luqadda Ingiriiska khaasatan vocabulary-ga. Dadku waxay inta badan sameeyaan 10 erey 20 erey hadba waxa ay maaragtay xifdii karaan ama ay qaybi karaan in ay soo qortaan ka bacdina ay isku dayaan in ay xifdiyaan ama ay qaybaan. Marka taa beddelkeeda waxa aad iyo aad u muhiim ah inaad soo qaadato hal topic, hal mowduuc oo maalinta wax ka barato. Tusaale ahaan inaad mowduuca waxbarashada, teknolojiyadda, maxaa la yiraahdaa siyaasadda, maxaa la yiraahdaa sayniska, caafimaadka, ganacsiga, suuqgeynta maalinba mowduuc gaar ah inaad wax ka barato oo 10 erey 20 erey waxaad waxaad karto aad ka barato iyo aad u muhiim ah. Halkan maanta waxaan kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah ereyada loo isticmaalo siyaasadda. Marka soo dhawaada. Kelmadina koowaad waxa weeye referendum waxaa loo yaqaanaa afti baa loo yaqaanaa. Afti cidaan garanayn aftidu waxa weeye bulshada ku nool waddan marka la rabo bulshada masiirkeeda ama waxa ay doonayso in la ogaado ayaa la sameeyaa wax loo yaqaano referendum ama afti ayaa laga qaadaa. Tusaale yar oo kooban, haddii maanta waddanku uu doonayo ama waddanku ay soo wajahdo xaalad ay adag tahay ama laba shay in la kala go'aansado oo la kala doorto, madaxweynaha iyo cidda matasha say u ogaadaan shacabkooda waxa ay ka rabaan arrintaas wax la sameeyo wax loo yaqaano referendum ama afti ayaa laga qaadayaa. Tusaale labaad, haddii maanta gobol ka mid ah Soomaaliya ama waddan uu doonayo inuu madax bannaani ka helo waddankaas, shacabka gobolka ku nool wax laga qaadayaa aftidaas oo ah inay ku sii jiraan waddankooda iyo in waddanka ka baxaan. Marka aftidaas sida doorashada kale loo qabanayaa, dadku inay codeeyaan kala doortaan maaragtay waxay rabaan. Marka adiga aftida waxa weeye hab silmi ah oo doorasho ah oo la kala dooransiyo laba shay bulsho ku nool waddan oo aftida laga qaado si loo ogaado masiirkooda. Halka markaa waxa ku qoran nationwide referendum will be held to decide the issue. Nationwide referendum will be held to decide the issue. Afti ayaa dalka oo dhan laga qaadi doonaa si go'aan looga gaaro arrintan wadaas. Marka taas waa loo yaqaanaa aftida. Ka afti waxaan filayaa maanta wax ka dambaysa inaad fahmi doonto waxa ay tahay. Ereygan labaadna waxa weeye impeachment markaa waxa weeye eedayn amba cambaarayn ayaa loo yaqaanaa impeachment inta badan waxaa loo isticmaalaa marka mas'uul xil haya ama goob haya wax lagu soo eedeeyo waxaasoo la xiriirta wax illegal ama misconduct ah adoo eedayn la soo jeediyo. Tusaale ahaan, he will not be the first official to face the impeachment, yani ma noqonayo mas'uulka ugu horreeyay ee wajaha xilka qaadista ama eedaynta noqonaya. Tusaale ahaan, ma noqon doono mas'uulkii ugu horreeyay ee wajaho xilka qaadis. Marka impeachmentigu xilka qaadis noqon kartaa in xilka qaadis lagu sameeyo qofkaas oo la soo eedeeyo. Marka hore la soo eedeynaya waxa laga keenayaa maaragtay waraaqa iyo dokumentiyo la xiriira oo cadeyna in qofkaas yani waxaas ku kacay falkaa ku kacay fal dambiyeedka uu sameeyay ama wax lid ku ah qaranka iyo sharciga u yaala marka waddankaas. taas ayaa loo yaqaan marka impeachment eedayn way eedayn. He will not be the first official to face impeachment. Marka impeachment waa noocaas eedayn weeyahay. Ereygan saddexaadna waxa weeye sufriyanad waxa weeye macnaheedu qarannimo. Marka national sovereignty is under threat. Qarannimadu yani ama madax bannaanida qaranka ayaa khatar ku jirta. Ingiriis ahaan waa saas, national sovereignty is under threat, yani qarannimadii waxay ku jirtaa khatar oo macnaha weerar ah ama dagaal lagula jiro ama eedayn lagula jiro ama dowladdu yani la carqaladeynayo. Marka taas oo loo yaqaanaa qarannimo. Inta badan waqtiyadan dambe waxaad maqashaan sovereignty-ga Soomaaliya iyo maxay ay mataqaanaa Ethiopia iyo hawlahaas inta badan la yiraahdo in la ilaaliyo sovereignty-ga qarannimada, in la ilaaliyo madax bannaanida waddankaas in la ilaaliyo. Marka sovereignty-ga inta badan waxyaabaha ku jira waxa kamid ah dadka kamid ah, dhulka kamid ah, resource-ka kamid ah, ama ilaha dhaqaalaha waddankaas leeyahay, lacagaha uu leeyahay, wax walba oo dal uu leeyahay oo isagu maamulo marka waddanka shay oo soo farageliyo
taas ayaa loo yaqaanaa yacnihii the national sovereignty is under threat, yani waa mid khatar ku jirta qaranimada waddankaasi marka in waddan shisheeye soo farageliyo ama qof shisheeye uu soo farageliyo. Marka madax bannaanida ama qarannimadu waa midaas weeye, waxaa loo yaqaanaa sovereignty ayaa loo yaqaanaa. Ereygeena afraad waxa weeye incumbent wax loo yaqaano qofka xilka haya. Xilkaas wuxuu doonaba ha noqdo, qof xil haya ama xil haya ah ayaa loo yaqaanaa marka. Tusaale ahaan, the incumbent president faces problems which began many years before he took the office. Yani waxa weeye madaxweynaha hadda xilka haya waxa soo wajahay dhibaatooyin kasoo bilowday sanado badan ka hor inta uusan xilka la wareegin. مثلا حتى wax loo isticmaalo incumbent president madaxweynaha xilka haya wey. Yani incumbent president madaxweynaha xilka haya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin kuwaasoo bilaabmay sanado hore ka hor intaan xafiiska iman. Marka incumbent waa xil haya, waa qofka xilka haya, qofku doon noqdo incumbent waa qof xil haya. Incumbent baa loo dhaqaa incumbent president saas loo yaqaan marka incumbent marka waa qof xil haya wey. Ereygeena u dambeeya cabinet golaha wasiirada. Waa golaha wasiirada weeye cabinet. She is a member of the cabinet, waa mid ka mid ah ama xubin ka mid ah golaha wasiirada, waa xubin ka tirsan golaha wasiirada. Cabinet marka la yaqaanaa golaha wasiirada, cabinet waa golaha wasiirada. She is a member of the cabinet, waa mid ka mid ah golaha wasiirada. She is a member of the cabinet, waa xubin ka mid ah golaha wasiirada, waa xubin ka tirsan golaha wasiirada. Taas loo yaqaan marka cabinet. Marka waxaan filayaa 5 erey oo culus oo la xiriira siyaasadda inaad maanta baratay.